maxaa dhab ahaantii kaa dhigaya editor wanaagsan dadaal xiise hal abuur mise waa isku darka dhammaantood waqti xaadirkan waxaa jira editore aad u fara badan editoradaasi waxa ay kaa qariyeen sir aad u weyn oo ka dhigaysa muuqaalada aad editgaraynayso mid kor u qaadaysa daawadayaal badanna soo jiidan doono oo lagu odhan doono wow editka wow fadhiya kaalin editgarey muuqaal maanta waxaan fashili doonaa 4 sir oo adeegsadaan editoradu waaweyn kaasoo ka dhigi doona muuqaaladaada next level fadlan nala jooga ilaa dhamaadka muuqaalkana waxaan kuugu hayaa hadiyad aad ku farxi doonto waa maxay video editku waa mashruuc aad ku abuurayso muuqaal xambaarsan qiso mashaacir iyo macluumaad processka lagu sameeyo muuqaalku aad iyo aad ayuu fudud yahay waxaad soo qaadanaysaa muuqaalkii asalka ahaa waa jarjaraysaa kadib waxaad raacaysaa transition iyo effects haddana waxaad ku dari doontaa sound effects kadibna waxaad odhan doontaa export si u soo baxo muuqaal aad u cajiib ah haddaba waa maxay siraha ay kaa qariyeen editorada waaweyni sirta koobaad dooro hal software kaliya video editorada waaweyni marka ay marxaladadan marayeen waxa ay doorteen hal software oo kaliya say u bartaan hadda waxaa jira software aad u waaweyn oo wax lagu editgareeyo adigu waxaad dooran doontaa mid kaafiya baahiyahaaga anigu hadda waxaan isticmaalaa waa CapCut oo aan ku doortay inuu yahay mid bilaash ah oo wax lacag laga qaadeen sidoo kalena ay fududahay si loo barto haddii aad rabto inaad barato CapCut waxaan ka sameeyay 2 course oo cajiib ah oo ka dhigaya editkaaga next level fadlan igala soo xiriirada u baahan tahay linkiga description-ka yaala sirta labaad ee muhiimka waa inaad fahanto qisada editorada waaweyni iskama jarjaraan muuqaalada oo kaliya ee waxa ay yaqaanaan bilowga dhexda iyo dhamaadka waxa isweydiiyaan muuqaalkan waxa uu xambaarsan yahay waa maxay fariinta aan rabo inaan gaarsiiyo daawadaha maxay yihiin dareenka aan doonayo inay daawadayaashu ay dareemaan ka hor intaad bilaabin editka si fiican u fiiri muuqaalka tan waxay ka caawinaysaa inaad doorato meelaha ugu muhiimsan ee muuqaalka iyo meelaha aad ka takhalusayso ee aad jarjarayso ee aan muhiimka ahayn sirteena saddexaad isku dhafsoon effectiyada sirteena saddexaad oo ah mid dad badan ayna garanaynin waa sound effectiga waxaad soo saari kartaa muuqaal aad u qurux badan laakiin haddii uuna lahayn sound effect waxa uu noqonayaa mid ay daawadayaashu si fudud uga cararaan sound effectiyadu waxay muuqaalkaaga ka dhigayaan mid nool oo qurux badan bal ila eeg labadan muuqaal iyo farqiga u kala dhaxeeya waxaad aragtaa in muuqaalka sound effect-ka leh uu ka qurux badan yahay muuqaalka aan lahayn okay sirteena afraad ee ugu dambaysa wax ka bara midabada ama color grading sirteena afraad ee ka dhigaysa shaqadaada mid xirfad sare leh waa inaad taqaano hagaajinta midabada ama color grading marka ay dadku daawanayaan filmada ama fiidiyoosha waaweyn waxay arkaan midabo adag oo dareen gaar ah xambaarsan waxa aad samayn kartaa muuqaal laakiin hadduusan midabadiisu aysan soo jiidasho lahayn waxa uu ekaan karaa mid caadi ah bal ila eeg labadan muuqaal iyo farqiga u dhaxeeya waxaad aragtaa muuqaalka kalarka quruxda badan leh inay indhaha ku raaxaysanayaan halka muuqaalka kale ay indhaha ku ordayaan si aad aragteen waxaad doonaysaa inaad ka mid noqoto editorada waaweyn waxaad u baahan tahay inaad fahanto qodobada muhiimka ah soo sheegnay oo aad isticmaasho hawlwelin haddii aad bilow tahay qof kasta meel ayuu ka soo bilaabaa hadda waxaad sugaysaa buu hadiyada aan ku wada waxa weeyaan in 3 qof oo idinka kamid ah aan koorsooyinka aan bixiyo bilaash ku siin doono shuruudaha la buuxinayo waxa weeyaan inaad muuqaalkan like saarto subscribe na siiso saaxiibadana u share garayso nubarna aad ka qabsato 1 ilaa 100 natiijadu waxay soo bixi doontaa 3 cisho kadib oo waxaan soo dhigi doonaa qaybta community-ga waa sidaa iyo salaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh